بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalahayga waad salaamantiin meel kasta oo joogtaan nabadiina naxariiso korkiina ahaato. waa barnaamijkeena xisaabi naftaada intaan la xisaabin oo maanta ku soo qaadan doono aniga iyo idinka iyo awlaadeena wax faa'iido u leh. bushqada aad arkaysaan shalay baan dalbaday maantana way ii timid. maxaa ku jira hadda bushqada? waxaa ku jira wax dhammaanteen faa'iido inoo wada leh. aniga iyo awlaadeennaba dhammaanteen faa'iido inoo la jira. sinay wada ogsoonahay kullukum mas'uul wa kullukum mas'uul can raciyatihi nabiga alayhi salaatu wasalaam. dhammaanteen mas'uuliyad ayuu saaran. nin walba wuxuu mas'uul ka yahay ama qof kastaaba wuxuu mas'uul ka yahay wixii la raaciyay ayuu ka mas'uul ka yahay. naftii, awlaadii, xaaskii, wax walba mas'uul ayaynu ka nahay. sidaa darteed innaga dhammaanteen waalid baa ina soo rabeeyey. nin walba ama qof walba maanta haddii aan weydiiyo ku dhahdo goormaad faatixada baratay ma garan karo. qof sheegi kara oo Soomaaliya waaye ma jiraan ayaan oran karaa. waa nul. sababtu waa maxay? markayna yareenba waalidkeena soo rabeeyeen inagu rabeeyeen diinta islaamka iyo wanaagga iyo sharafta iyo akhlaaqda inagu rabeeyeen. qof walbana isagoo faatixada dudubanayay oo sarkay ilaahayna yaqaan rasuulkiisana yaqaan calayhi salaatu wasalaam. sidaas la eg baa maanta mas'uuliyadaas inaga wayna saaran tahay. waalidkeen mas'uuliyadoodu way guteen, inagana mas'uuliyadii maanta anagayna saaran tahay. waxayna inoo saaran tahay awlaadii aan dhalay inoo saaran tahay. wadankii ma joogno inta markaa ilmaheena uu diin u baahan yahay ku xisaabtan inta aad adigu u baahneed in ka badan ayuu u baahan yahay. sababtoo ah waa maxay? macallin baa jiray, dugsi baa jiray, masaajid baa jiray, bulshaa jirtay, meel walba waxay ka qayb qaadanaysay tarbiyadda. inagoo aan maanta la nimid wadankan ayay ka qayb qaadanaysay, laakiin awlaadeennu jaaniskaas may helin. sidaa darteed awlaaddu waxay ku fiican yihiin maanta luuqadda Jarmalka. ilmo kasta oo laga bilaabo 8 sano faa'iidadan baan u soo helay aan u hayaa. waalidiinta dhammaantoodna waxaan ka codsanayaa inay wada gaarsiiyaan. kitaabkan aad arkaysaan 100 su'aalood oo ku saabsan ambiyadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhammaantood ayuu ku saabsan yahay. qaabka uu soo dhigayana wuxuu leeyahay nabigii ceelka lagu riday waa kuma. deetana 3 su'aalood baa lagu siinayaa jawaabood. kadib haddana waxa weeye jawaabtu meel kale ku qoran tahay. waa qaab hal xidhaalo oo kale weeye. adigii awlaadiin inaad isweydiisaan oo ilmihii aad tiraahdo ii akhri wixii aad u faa'iido aad ku dhaantana aad u sheegtid. kan kale labaad waa 100 su'aalood oo ku saabsan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. 100 su'aalood oo ku saabsan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam weeye. kan kale ee magaranaysaa ugu dambeeya 100 su'aalood oo ku saabsan bisha ramadaan ee barakeysan weeye. bisha ramadaan ay barakeysan ayuu ku saabsan yahay. marka 300 oo su'aalood ayuu ilmahaagu wuxuu ku helayaa si yaroo fudud isagoo ay ugu qoran tahay waliba af uu fahmi karo afka Jarmalka ah. adigana waxa waajib kuga ilmahaaga inaad u dalabtid. qiimahoodu saddexdaas markay wada socdaan waa 9 euro iyo 3 euro oo lagu soo dirayo boostada lagu soo dhigayo 12 euro ayaa waxaad ku faa'iideysaa 300 oo su'aalood ayuu ku faa'iideeyaa ilmahaaga. haddaba maxaa la inooga baahan yahay? iminka maanta saaka markay soo dhacday wiilan dhalay baa ila socday. waxaan ku yiri fur. wuu furay kitaabka ku saabsan ambiyadii oo dhan ayuu ii akhrinayay. anna waan la caawinayay. su'aasha markuu weydiiyo aniga ka jawaabayay, isna wuu imtixaamayay. ilmihii markaa muxuu faa'iidayaa? wuxuu faa'iidayaa waxaan u akhrinayo inuu faa'iido. jawaabtiina markuu eego oo xagga meeshii loogu talagalay jawaabta ay ku qorneed oo eego waa sax buu lahaa. ma garat hadda? marka waxaad samaynaysaan waad soo wada fadhiisanaysaan. akhri baad leedahay ilmihii, adigiina waad uga jawaabaysaa. wixii aad garan weydeen inaad wada garataa khasab maaha. su'aalo badan oo ma garanaysaa inaan dad badan ayna garanaynin qofka diinta bartay mooyaan ayaa ku jira. wixii aad garan weydeen inaad tiraahdo qaybta su'aalaha jawaabaha inooga fiiri halka aad ka wada faa'iideysataan. baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayr. awlaadiina ku ooga xujada. ilmaha haddaad diintiisa aad bartid, ilaahay aad bartid, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad bartid oo ilmo wanaagsan oo ma garanaysaa aad ku ogtay xujada wixii uu geystay hadhow adigu dambi kuma lehid. laakiin ilmahaaga haddaad ka gaabisid mas'uuliyaddii aad ka gaabisid, diintii aadan barin, waxba aadan barin, hadhow wixii uu faray ilmahaas waxa weeye waxaad ku leedahay dambigeeda ayaad ku leedahay. waan idin wada salaamayaa. meesha laga helo iyo qaabka aad u dalban kartidna xagga hoose ayaan idinkula wadaagi doonaa insha allahu videogan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.